kulankan wada tashiga ahaa oo looga hadlayay aayaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada horumarka dawladnimada iyo horumarinta dalka laguna mideeyay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen haween ka socday maamul goboleedyada dalka xildhibaano kaasi oo soo qaban qaabiyay ururka haweenka qaranka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ururka haweenka qaranka oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay caqabadka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka dalka gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadashay munaasabada ayaa kula dardaarantay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan midnimada haweenka Soomaaliyeed iyo horumarka dalka gabdhaha Soomaaliyeed ma seexan waxay sababta bixiyeen dalkooda waxay badbaadiyeen ummadooda waxay u taagnaayeen mar walbaba midnimada ummadda Soomaaliyeed waxayna ka soo horjeedeen dagaalada sokeeye waxay ku baaba'een barakac iyo qaxooti iyo naafo iyo dhibaato fara badan oo ay kala kulmeen burburkii Soomaaliya ku dhacay Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.